الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. أولا وحن سلامة يا مرت شرفت هالكم فديدا دمان سراكيشة odayaasha dhaqanka gabdhaha qaaliga ka soo qayb galay xafladan iyo isu imaatinkan waxaan leeyahay dhamaantiin waa mahadsantihiin sidii aad u hadasheen iyo wanaagsan iyo hawshaad isaga timaadeen. waxaan halkan fariin adag uga direynaa maamulka Puntland ehelada maamulaysa iyo inta ku nool oo isimada iyo ehelba leh wasiirka ka hadlay matala asagoo ku hadlahaya maamulkaas taagan la yaqaano maamulada Soomaaliya oo dawladda federaalka mooyeen ugu daaweyn walaaltinimadka iyo ehelnimadka iyo annagu aan ku tirsanayno inuu annaga lafaha annaga noo dhisan yahay ayagu siday u arkaan كل سيدة أهل لين بيكم وقطع وحن لنا هاي شريعة الإسلام واتكحد جذبتين دقن كإسلام كان واتكحد جذبتين دال الشذا ولا التنمنا واتكحد جذبتين أنت أصلاً هذا تكحد جذبتين حد جذب كينو ما هميد ما أنت باللوضي وامد مدرر سعودي وحن إذا لنا هاي dhaxdiina miyuusan ku jirin qof wax garta oo ah in xumaanta la iska reebo walaaltinimadka iyo dhalashada la fiiriyo daris wanaaga iyo ehelnimada waxa la isku yahay la fiiriyo dadka islaamka iyo dadka wada dhashay sinaasahooda iyo wax wada yeelashadooda la fiiriyo maxaa idin ku beeray uqdada maxaa idan tusi waayay ehelnimada waxaan leenahay hawshaas nasabka gaadhaysa ee dhaqanka Soomaaliyeed ka baxsan dadku siyaasadda way ku xisaabtamaan qofka wax qabadkiisa shakhsiyan baa la isku dhaliilaa fikradda lagu kala dunaadaa laakiin waxyaalaha ku dhacaya dhalashada ehelnimo ee dadku ay wadaageen ee ku xadgudbaysaan waxna qabta maaha annagoo ah dhaqankii kuumade oo gobolka Banaadir hadda ka hadlahaya warkaas waxaan sugaynaa eheladii sixi lahayd iyo cidi ka dhiidhin lahayd haddii laga dhiidhin waayana Soomaalidu waxay tiraahdaa qaniya ka fujisa dulqaadkii intaas la idinku samrahayay inaad idinku ka badbadiseen ogaada ehelka uu inta ku dhacayayna inay walaaltinimo iyo islaamnimada iyo ehelnimada iyo sabir adeegsan hayeen ogaada laakiin maanta waxa dhacaya xadka gudbay wixii ka dambeeya ma fiirsan doono waxaas oo kale oo ma dul qaadan doono waxaas oo kale jawaabtaas cidii sixi lahayd haday dhaxdiina ku jirtana waan sugaynaa hadii aad sixi weydaanna maanta siday u bilaabatay bay u soconaysaa cidii soo cabaado oo hadii kadib danqata la arki doona cid walbana waxay tahay iyo dadnimadeeda iyo waxtarkeeda iyo dulqaadkeeda iyo markii ay soo jeedsato taariikhda lagu yaqaano waxa laga arki doona Soomaali dhaxdeedii iyo dhaxdeena laga arki doona waxaan leenahay jawaabtiina aan idin soo dirayno waa mid aan maanta leenahay isa saxa wali haddaad isa sixi weydaan oo ehelnimada iyo waxaan xeerinayna arki weydaan cid walbaba waxay wax ku beegan doontaa madaalkeeda wax ku beegan doontaa aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh